حرساكا حسب وطني حرساكا سوكي يعني تاتي صحافته إن أنا ذي شيء إن كودي فرينتا حسب وطني وما أنت شركية شيء حرمته حسب وطني ما أنت مع حدا تاريخ ده استدي أبريل لبضي يكون يستدي توك وحارك الدودي إنه أجندها ما أنت سوكي مدينوها سيمقلنا وقدودين قبشة شوينه حسب وطني لبكون يستدي توك dood dheer kadib waxaa guddiga fulintu sii wada jira iskugu raaceen in shirweynaha dib loo dhigo muddo sanada taasoo ka bilaabmaysa 9 abriil 2018 halkaa ku celiyo dood dheer kadib oo guddiga fulinta ee xisbiga wadani uu yeeshay oo gudoominayay gudoomiyaha xisbigu dhammaana loo wada dhammaa waxa uu go'aansaday oo isku raacay in dib loo dhigo muddo sanad ah oo laga bilaabo 9 abriil way shirweynihii hore wuxuu qabsoomay waxay 8 abriil ilaa 9 abriil markaa 9 abriil buu ku buuxaa 9 abriil la qabtay ahayd inta dib loo dhigay muddo sanad guddiga fulintu waxay tixgeliyeen qodobka 16aad ee xeerka xisbiga wadani oo lagu sameeyay kaabidii wax ka bedel 2 in dalka dhawaan ay ka qabsoontay doorashadii madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo culays badan dadka iyo dalkaba kaga tagtay 3 in taageerayaasha qurbo joogga ah oo si weyn uga soo qayb galay doorashadii madaxtooyada ee dalka ka dhacday ay ku adag tahay inay si dhaqso ah ugu soo noqdaan dalka mar kale maadaama ay shirweynihii ka yihiin qayb muhiima oo xisbiga iyo dalkaba muhiim u ah 4 iyadoo ay nagu soo fool leeyihiin dhawaan haddii ilaahay yidhaahdo diiwaangelintii codbixiyaasha iyo qabashadii doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka oo laba doorasho saaran oo culays badan leh uma baahan diyaargarow aad u badan iyadoo shirweynuhu u baahan yahay waqti iyo diyaargarow ballaaran wabilaahi tawfiiq وباتت